بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إله ومهد اسكاله سبحانه وتعالى. شركا جرائد علماء waxay u qabteen iyagoo ka jawaabaya codsigii madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu soo jeediyay in lagu kaalmeeyo dhibaatadii ka dhacday magaalada baladweyne shacabkii dhibaatadaas ay soo gaadhay Soomaali meel ay joogtaba in ay shacabkaas ay u kaalmeeyaan sidoo kale codsigii isaguna uu soo jeediyay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni oo isaguna uu soo jeediyay shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba in laga qayb qaato gurbadka loo gurmanayo dadka walaalaheena oo muslimiinta ah oo duufaantu ay kaga dhacday iyo daadadku magaalada baladweyne ugu horeyn waxaan ka tacsiyeenaynaa dhibaatadii meesha ka dhacday dadkii ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay ha u dami dhaafo dadkii ay ka tageen iyo ehelkoodiina Ilaahay samir ha ka siiyo bedel khayr qabana Ilaahay ha ka siiyo subhanahu wa ta'ala dadka dhaawaca iyo dadka dhiban oo daadkaas uu saameeyayna iyagana Ilaahay waxaan uga baryaynaa kurbada haysa Ilaahay inuu ka qaado subhanahu wa ta'ala baahida ay qabaan haday tahay mid cunto ah haday tahay mid dhar ah haday tahay mid deegaan ah iyo wixii kale oo baahi ay qabaanna Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu u daboolo subhanahu wa ta'ala sidoo kale Ilaahay waxaan uga baryaynaa dhibaatadaas meesha ku soo noqotay Allah subhanahu wa ta'ala dhibaatadaas inuu ka qaado halkii dhibaatadaas looga hortagi lahaa hadda kadib inaysan dhicinna dawladda iyo shacabka Soomaaliyeedba iyo cidii wax qaban ka dhaba Ilaahay inuu waafajiyo subhanahu wa ta'ala Allah inuu sahlo intaas kadib culimada Puntland anagoo kamid ah waxaanu go'aaminay oo la isla gartay in loo istaago dhibaatada halka ka dhacday dadka ay soo gaadhay in loo gurmado oo sidii awalba reer Puntland dhaqanka u ahayd markii Soomaali meel kasto ay joogto dhibaato ay ku dhacdaba inay u gurmadaan dhaqankii wanaagsanaa oo aynu ku khayray oo amni iyo nabdoonaan iyo dhaqaale iyo wanaagoona Ilaahayna ku siiyay subhanahu wa ta'ala dhaqankii wanaagsanaa meeshii in laga wado gurmadkaasna hadda la bilaabo oo aad iyo aad dadka shacabka ay dawlad hadaynu nahay iyo shacab hadaynu nahay ganacsato rag iyo dumar dhammaan aynu ka qayb qaadano sida culimadu ay iclaamiyeen waxaa jiray lacag yar oo abaartii 2017 ka harsanayd oo culimadu akoonadii ay ku xireen oo ay la sugayeen maadaama shacabkii Soomaaliyeed lacagta ay u soo ururiyeen dhibaatadaas oo kale in lagu bixiyo waagiina abaartii Ilaahayna ka saaray abaar damana aan la arag culimadaas lacagta waxay la sugayeen wixii loogu talagalay hadiiba ay timaado tan haday timidna shir culimadu ay qaateen waxay isla garteen lacagtaas oo 164,000 ah in gundhig looga dhigo hantida loo ururinayo magaalada baladweyne dadkii dhibaatada ay ku soo gaadhay ugu damayn waxaan leeyahay hawshaas aynu u gurmano Allah iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam ayaa ina faray الله وأطولها ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ما أنت وحل جوجا ما أنت النبي عليه الصلاة والسلام لمن دبن أنت ويمادين نبي وجهك سوء اسبدلي صلى الله عليه وسلم مركزنا بلال وفري إنه مساعدة كأدمه سلي سوي ماده dabadeed nabigu khudbad dheer jeediyay sallallahu alayhi wasallam khudbadaas ay kamid ahayd maanta qofkii waxay kara faliyay tasaddaq rajulun bidirhami bidinari min thawbi min saa'i burri min saa'i tamri halkaas ay joogta ila ugu damaynta nabigu yiri alayhi salatu wasalaam walaw bishiqi tamra maanta hal baxo qofkii heli kara diinaarkiisa kii heli kara hal diinaar dirhankii heli kara marakii heli kara saac bur ah ama maxaan ku qamadi ah ama timira kii heli kara ila nabigu gaarsiiyay alayhi salatu wasalaam xabad timira jeexed qofkii heli kara hal baxo maanta maalintaas ay taagan tahay qof walbo ina kamid ah rag iyo dumar kii kun heli kara 2,000 kii heli kara ka badan kii heli kara $1 kii heli kara hawshaas laga qayb qaato gaar ahaan shirkadaha hantida Ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala oo walba gurmadka hormoodka ka ahaan jiray iyagana waxaan ugu baaqaynaa mar kale iyaguna sidoo kale gurmadkiina hormood ugu noqdaan wabillahi tawfiiq sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la baxaya
akoonada boorka ka muuqda in ama shaashada ka muuqanaya in dhaqaalaha lagu bixiyo dibad iyo gudaba hadday tahay akoonada sahalka ah iyo hadday tahay akoonada kale akoonada ayaa lagu soo diraya haddii ilaahay idmo wabillahi tawfiiq محمد وصحبه أجمعين وبعد الشيخ محمود ayaa dhameeyay mowduucan istaaga halka aan taaganahay iyo kongareeska aan qabanayno waxa weeye gurmadka walaalaha Iiraan iyo kuwa kale oo fatahaadu ay gaadhay dhamaantood inaan ka qayb galnay haddaan nahay culimada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Puntland gaar ahaan culimada magaalada Garowe waxaan rajaynaynaa insha Allah taala qayladanta sheekhu sheegay in siday u tahay loo qaato dadweynaha ilaahay wax siiyay reer Puntland haday $1 wada iska inuu bixiyo oo koomada ku rido wax weyn bay noqonaysaa walaalana wax weyn bay u taraysaa waa rajaynaynaa dhamaanteen yaraan mid weyn iyo mid yar $1 hadii lagu rido waxay noqonaysaa malaayiin lacag ay noqonaysaa walaalaha dhibaataysan oo maanta dibadda yaala oo guryahoodii biyuhu ay galeen oo dhaxan iyo kaneeco yaani ku jira inaan maanta u gurmano hadda walaalnimadii weeye مثل المؤمن في تراحم وتوديهم يعني waxa weeye muuminka يعني iyo walaalka kale walaalkiisu weeye المؤمن للمؤمن كالبنيان بالنبي عليه الصلاة والسلام haddii aanan maanta gurman hadda waxa weeye arintaasi waa la inoo qabsanaya oo waxa weeye cid kale wax laga wadiinay ma jiraan Soomaaliya hadday beel joogtaan hadday gurmato gurmad kale uma baahna ayaa isku filan si marka la yeeri jiray hadday tahay duufaanihii dhici jiray inta koor hadday tahay tii ka dhacday halkan oo waxa weeye magaca hayaan lahayd iyadaa Soomaaliya isku gurmatay ayadaa wax badan soo qabatay wixii ay bixiyeen wax macna la ma ahayn ayadaa dadkii lagu xooleeyay ayadaa dadkii lagu dajiyay ayadaa baaqi wax lagu baray haddeer lacagta lagu bilaabayo maanta gurmad degdeg ah oo dhigu joojin laga bilaayo oo bilow laga dhigayo waa lacagtii ka soo hadhay waxa weeye abaartii ka dhacday 2017 gobolkan walaayada Puntland abaartii ka dhacday weeye oo culimadu ay meel adag ku haysay lana sugaysay meesha meel la mid ah maadaama ay amaana ahayd oo loogu dhiibay dhibaato loogu dhiibay ayaa waxa ilaahay maanta ilaahay mahadiisa inay noqoto gurmadkii ugu horeeyay oo ka baxa يعني واحد دولة كبدلان أرجعنا سيدك ولا هنا وقعدوا أرجعنا إنه كفاية الإسلام ولا الله كرنا كذا ده سومالي مالي شوكتو هديتها سومالان هديتها سوماليا كذا كله هديتها قبل استديا كله ما أنت واحد منا ولا هنا وقرب منه إنه كوهلين لما أنت إن شاء الله تعالى ولما باقي إن شاء الله وقدي شوكان قبل كنوا يالي هدي بري شوكان أيها كفلان لعكتها واحد دوننا إن شاء الله تعالى على قبل ما أنت وبيش صدر أيتاي بيش إسلام كان أيتاي maalintii labaad waxaan rajaynayaa usbuuc arintaas waxa weyn lagu soo gabagabeeyo waxyaalo badan baa la sheegayaayo duufaano ka soo socda Cumaan waa la sheegayaa waxaan noqon doonaa Ilaah baa yaqaan Ilaah baan soo weydiin doonaa inuu dhinac naga mariyo laakiin tan haddaan ka jawaabno taasna Ilaah waxaan ka marinaya marka si degdeg ah u jawaabna insha Allah taala wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa sahbihi ajma'in